saaxadda tiknoolajiyadda iyo computeriska waxaa ka buuxa erebixino aysan dad badan aqoonin haddana si joogto ah loo adeegsado. waxaan soo qaadan karnaa 32 bit iyo 64 bit laga yaabo inaad maqasho markastoo aad application soo dejisanayso oo dooratid nooca computerkaagu yahay ma 32 bit ba mise waa 64 bit. muuqaalkeena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa macluumaad saabsiisan 32 bit iyo 64 bit maxay kala yihiin si farqiga u dhexeeya muxuu yahay. soo dhawaad dhalinyaro. aynu ugu horeyn ka bilowno waxa uu yahay bit waa inta ugu yar ama unitka ugu yar ee lagu cabiro xog ku saabsan computerka. computerkan waxa uu ku fahmaa 0 iyo 1 soo maahan binary code key. marka bit waxa uu noqon karaa 0 ama 1. waxaynu ognahay in xarfaha keyboardkeenu uu xaraf kasta ka kooban yahay 8 bit. markaad ay qorto waxa computerku u yaqaanaa 8 number oo ka kooban 0 iyo 1. okay, bit misla fahanay. haddaba markaynu leenahay computerkaasi waa 32 bit ama 64 bit waxaanu ka hadlaynaa baaxadda processorka computerkaasi. processorka ama CPU-da computerkaasi waa meesha ka dhacayso shaqada ah in xogta aynu computerka ku adeegsanayno ha noqoto qoraal, video, game ama nooc kasta oo ah loo bedelo binary code uu computerku fahmi karo. waxaan shaqadaasi qabanayaa CPU-da. okay, computerska 32 bitkaahi waxay halkii mar process gareyn karaan xog dhan 4 GB oo RAM ah. awoodda ugu sareysa ee computerka 32 bit ah ay ku shaqeyn karaay waa 4 GB. taa macnaheedu waa in aadan computerka ku adeegsan karin shaqooyin badan. tusaale ahaan kuma adeegsan kartid gameska waaweyn oo kale ama shaqooyin badan oo video editing ah. sidee tani u dhacaysa haddaba? waxaanu isla fahanay in hal bit noqon karo 0 ama 1. computerka 32 bitkahina waxa uu yeelan karaa 2 power 32 oo waxaan oran karnaa waa sidii computerkaas inuu leeyahay 12 khan oo yaryar. haddii khan kasta noqon karo 0 ama 1 waxay khanankaasi ku buuxsami karaan oo yeelan karaan 4.3 bilyan oo bytes ah. intaas oo combination ayaa ka samaysmi kartaa. intaasina waxay u dhigantaa 4 GB oo RAM ah. qodobkaasi misla fahanay sida uu computerku 32 bitkaahi ku noqday awoodda ugu sareysa inay tahay 4 GB oo RAM ah ama memory ah. dhanka kale computerska 64 bitkaahi waxay awoodda ku shaqeyn karaan in tahay 16 exabyte yani waa ku dhawaad 17 bilyan oo GB oo memory ah ay ku shaqeyn karaan. taas macnaheedu waa in apps-ku aysan wax caqabado kala kulmayn processing-ka oo ay heli karaan space aad u fiican oo ay ku qabsan karaan shaqooyinkooda. computerska iyo systems-ka xilligaana waxay badanaa adeegsadaan oo ku shaqeeyaan 64 bit kaliya. okay, haddaba haddaad soo gasho settings-ka computerkaaga Windows kadibna dooratid system about waxaa halkan system type ka arkaysaa nooca architecture-ka computerkaaga. tusaale ahaan 64 operating system x 64 basic processor oo macnaheedu yahay operating system-kani waxa uu awood u leeyahay inuu ku shaqeeyo 64 bit. sidoo kalena processor-kani waxa uu sina awood u leeyahay inuu ku shaqeeyo xawaaraha ah 64 bit-ka. marka laga yaabo inaad aragto 32 bit iyo x64 basic processor oo computerkaaga awood u leeyahay inuu ku shaqeeyo 64 bit waxa nibayo oo awoodiisa xadidayo operating system-ku. marka operating system-kaasi waxa habboon iska bedesho. laakiin haddii aad aragto x86 basic processor taa macnaheedu waa in processorkaasi uu yahay 32 bit oo processorada lagu magacaabo x86 basic-ku waxay ku shaqeeyaan 32 bit. soo jeegare computerkaaga. hagaag dhanka amniga waxaa horumarsan 64 bit. featureska uu leeyahay waxaa ka mid ah kernel batch protection oo ka ilaalinaya in malwaresku ay shaqo ka qaban karaan kernelka. waxaa ka mid ah mandatory driver signing oo ka hortagaya in driverska uu computerku isticmaalayo ay noqdaan kuwa aan la soo xaqiijin oo yacni malware noqon karaa. waxaana feature-kani hubinaya in driversku yihiin kuwa la garanayo oo legitimate ah. sidoo kale taleefanada cusub ee xilligan waxay iyaguna adeegsadaan processoro 64 bit ah. ugu dambeyn xasuusnow inaad hubiso nooca computerkaagu yahay markaad iibsanayso. sidoo kale qodob muhiim ayaa jira. haddii computerkaagu yahay 64 bit oo aynu soo xusnay inay awoodda ku shaqeyn karaa gaarsan tahay ilaa 17 bilyan oo GB taa macnaheedu ma aha in computerkaagu awoodiis intaa tahay. waxaa ku xadidaya markaasi waa hardware computerkaaga. tusaale dhow haddaynu soo qaadano waxaad haysataa bas 4 kursi leh. baskaasi si kasta uu fiican yahay ma qaadi karo wax ka badan 4 qof. kaasi waa tusaalaha 32 bitka oo awooddiisa ugu sareysaa waxay noqonaysaa 4 GB oo RAM ah. dhanka kale hataa haysto bas aad u dheer oo 17 bilyan oo kursi leh waxaa ku xadidaya awoodda baskaasi uu leeyahay. haddii uu baskaas injiinkiisu yar yahay waxba kuma darayso intaasoo kursi uu leeyahay ama intaasoo dad uu qaadi karo. sidaasoo kale waxyaabaha xadidaya awoodda computerkaaga waxaa ka mid ah RAM-ka oo kale awoodda RAM-ka iyo awoodda processor-ka iyo gigahertz-ka ku shaqeyn karto processor-kaaga ayaa ku xadidaya. muuqaalkeena maanta intaasay ku egyahay. ha ilaawin inaad macluumaad kala wadaagtid asxaabtaada. mahadsanid.